بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كسو دوادا مركلة برنامج كني عافيمات كدكتور منو طبيب يقان ما أنت عاو حنسي وضعنا برنامج كني كساب سنة دي كركا وحينو كهد لينا لباتوينك أو كانوا دي كركا هدي آن لداوينين dhibaatooyinka way badan yihiin waxaa kamid ah dhibaatooyin qofka maskaxdiisa ku dhici karta xididada ayaa yaraan kara waxaa dhici karta in xididadii ay maaragtay bararaan oo ay yeeshaan sida buufinkii oo kale ay qaybo kamid ay noqdaan kadibna ay dabacsanaadaan oo ay maaragtay dhacdo inay qarxaan oo maskaxda dhiig ku furanto taa ayaa dhici karto waana waxyaabaha loo yaqaan stroke oo kale ayaa kamid ah waxaana dhiikarku la ogyahay inuu yahay waxa ugu badan oo keena stroke dhibaatada kale waxay tahay haddii xididadii ay yaraadaan maskaxdii inaysan helaynin oxygen ku filan iyo nafaqo ku filan oo dhiigga waday sababtoo ah xididadii ayaa yaryar marka taa waxay keenaysaa in maskaxdii ay soo ururto oo qofka ay ku dhacdo dementia inay ku timaado ayaa dhici karto vascular dementia ayaa loo yaqaanaa waa midda xididadii xirxirmay ay keenayso qofkii inuu isku darsamo oo sidii ilmihii oo kale inuu noqdo ama ka daraba ayaa dhici karta waa waxyaabaha loo yaqaano qofka wuu canta tabay ayaa kamid ah waxaa dhiikarku uu saameyn karaa wadnaha sababtoo ah wadnaha marka uu dhiigga tuurayo oo cadaadis zaa'id ah dhiiggan uu kor u kacsan yahay uu ka hor imaanayo wuxuu isku dayaa wadnihii inuu gudbiyo dhiiggii si jirkoo dhan ugu qaybiyo mar alla markuu cadaadis kor u kacaba wadnaha waxaa ka hor imaanaya xidido iska caabinaya wadnahan wuxuu isku dayaa inuu si xoog leh mar walba usii tuuro dhiiggina uu sii badanaya cadaadiskiisii wadnaha wuu weynaan karaa wadnaha marka waxaa ku dhici karta weynaanshadaas faraha badan leh xoogga uu isticmaalayo ayaa waxaa dhici karta in isagana xididadiisii ay dhibaato gaaraan xididada wadnaha oo markaa iyagana ay yaryaraadaan oo dhiig fiican aynan helaynin taana ay keento in qofkii uu ku dhaco wadna xanuun dhanka kale kelyaha haddaynu fiirino sidoo kale cadaadiska zaa'idka ah wuxuu keenayaa in uu kelyaha ay dhibaato gaaraan xididadoodii ay soo ururaan oo cadaadiska faraha badan leh ay keento in iyagana ay soo ururaan oo ay yaraadaan oo markaa ay hawshoodii gabaan ayaa dhici karta waxaa dhici karta in xididada lugaha gacmaha indhaha sidoo kale iyagana ay soo ururaan oo dhiig fiican oo halkaa uusan marin taa marka in dhibaatooyin qofka ay u keenta oo xididada markay ka yaraadaan waxaa dhici karta in dhiig fiican aynan helin oo markuu qofka xoogaa socdaba ay dhici karto inuu xanuunsado oo maaragtay oxygen fiican lugihii aynan helaynin sababtoo ah xididadii adimadii hoose ayaa soo ururay oo dhiig fiican aan helaynin marka haddaan soo gaabsho dhibaatooyinku way badan yihiin midda maskaxda ku dhacaysa ayaa kamid ah oo xididada xirxirmaysa oo qofkii uu canta tabayo oo caqligiisii hoos u dhacayo xusuustiisii hoos u dhacayso ayaa dhici karto waxaa dhici karta in xididadii ay dabacsanaadaan oo ay dilaacaan oo maskaxdii dhiig ku furanto ayaa dhici karto waxaa kaloo dhici karta in wadnihii uu maaragtay bararo uu weynaado oo markaa ay wadnihina uu hawshiisii ay hoos u dhacdo howlgab u noqdo ayaa dhici karto kelyahana sidoo kale dhibaato ayaa gaari karta oo sifayntii qashinka ay dhiigga ka sifaynayeen ayaa yaraan karta marka taa hadday dhacdana qashinkii ay saari lahaayeen in jirka ay kusoo noqoto oo qofkii dhib ay gaarsiiso ayaa dhici karta sidoo kale xididada adimada sare iyo adimada hooseba waxaan ka wadaa gacmaha iyo lugahaba way xirxirmi karaan oo way yaraan karaan oo markaa qofkii lugihii ayaa kabaabis uu ka dareemayaa ama xanuun ayuu dareemi karaa markuu socdaba oo oxygen fiican uusan helaynin oo dhiig fiican oo maaragtay ay xubnihii helayn waxay keenaysaa in ay xanuunsadaan oo ay socodkii dhib ku noqoto indhaha sidoo kale xididadooda yaryar waa dhaawacmi karaan iyagana waxaa hadday dhaawaca uu sii socdo xididada ay ka xirmaan ama ay dildilaacaan qofka waxaa ku dhici karta indhoolnimo ayaa imaan karta marka dhibaatooyinka oo dhan si aan u imaanin waxaa habboon inaan la dhayalsanin qofka inuu la socdo calaamad khaas ah sidaan barnaamijyadii hore ugu soo sheegnaba ma jirto waa maaragtay inta badan
markuu qofka sanado badan ayaa waxaa laga yaabaa inuu calaamadba waxba dareemin oo iska socdo oo si lama filaan ah markii loo cabiro la arko inuu dhiiggii kacsan yahay. marka in lala socdo way habboon tahay in wax laga qabto xagga nolosha qofka habka uu u nool yahay, xagga cunto nafaqo leh oo dheelitiran oo culayskiisa aan kicinaynin, inuu isticmaalaa cusbada ku badneen, cuntada gasacdaysan inuu qofka iska ilaaliyaa, qofka inuu ku dadaalaa socod badan inuu sameeyaa, dhidid inuu iska keenaa, qashinka inuu iska saaraa. sidaa ayaa wanaagsan si looga hortago maaragtay dhiig karka dhibaatooyinkiisii. inta aynu ku kulmayna barnaamij kale oo caafimaad ah ee doctor Minow dabiib yaqaan, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.